4 carruur ah oo 2 wiil iyo 2 gabdhood oo walaalo ah baa midho u doontay miyiga baa la yidhi. Intii ay maqnaayeen baa reerkoodii ka guuray meeshii ay degganaayeen. Markii ay soo noqdeen bay reerkoodii ka waayeen meeshii. Fariido baa la odhan jiray gabadha ugu weyn carruurta, waxayna ahayd gabar waxgarad ah. Sidaas awgeed baa loogu bixiyey magaca Fariido. Raadkii reerka bay raaceen carruurtii, ka dibna kaymo cidla ah bay ku fogaadeen oo ku ambadeen. Waxay socdaanba waxaa u muuqday aqallo meel ka dhisan, say waa ku soo leexdeen oo is yidhaahdeen biyo iyo cunno weydiista reerkaas. Dadqalatadii dhegdheer baa lahayd aqalladaas oo gabsatay carruurtii markii ay u yimaadeen ayaan darradooda. Carruurtu dhowr beri waxba ma cunin oo gaajo xun baa haysay. Dhegdheer cunno iyo biyo bay siisay carruurtii si ay u cayilaan ka dibna ay u qalato. Maandhaay orodoo xaabo ii soo gur aan cunno idiin ku kariyo, bay dhegdheer ku tiri Fariido berigii dambe, eeddo walaalkayga weyni ha i raaco, oo ha ii wehelyeelo bay tiri Fariido. Waa yahay, ee ha fogaaninoo soo dhaqsada, bay tiri dhegdheer. Markii Fariido iyo walaalkeedii weynaa tageen bay wiilkii yaraa dhegta hiigga u dartay oo beerkiisii karsatay. Cad beerkii ah bay gabadhii yareed xoog ku cunsiisay gabadhii yarayd, intii kalena iyadu cuntay. Gabadhii way garatay in waxa la cunsiiyey yahay beerkii walaalkeed. Beerku kharaaraa, bay tiri iyada oo oyeysa. Kadib dhegdheer gabadhii yaraydna way qalatay. Fariido iyo walaalkeed sooma noqon ee way ka carareen dadqalatadii. Midkoodba meel buu u cararay si aynan dhegdheer uga dabo imaan oo u soo wada qabsan labadoodaba. Fariido iyo walaalkeed waa kala lumeen oo iswaayeen. Waxay orodaba Fariido waxaa ka hor yimid libaax dadqaad ah oo fadhiya waddada ay ku cararaysay. Fariido geed dheer bay ka fuushay libaaxii. Bahalkiina geedkii buu hoos fadhiistay si uu u qabsado una cuno markii ay soo degto. Fariido walaalkeed meel kasta waa ka doonay, beryo badan buuna goobayay. Walaashiis raadkeedii buu helay berigii dambe oo raacay, wuxuuna helay iyada oo geedkii ku joogta, libaaxiina hoos fadhiyo. Dab buu inta shiday qori dab ah ku tuuray libaaxii, bahalkii waa cararay. Fariido sidaas baa walaalkeed uga sabato bixiyey libaaxii oo rayrayn iyo farxad weyn ay mar labaad isku heleen walaalihii waayo badan kala maqnaayeen. Subaxii wiilku ugaarsi buu aadi jiray, walaashiisna waxay soo guri jirtay midhaha, galabtiina hilbaha walaalkeed keeno bay bislayn jirtay. Sidaas bay nabad iyo barwaaqo ugu noolaayeen dalkii fogaa ee ka shisheeyey buuraha waaweyn baa la yidhi. Sheekadu waa digniin iyo waxbarid ku saabsan halista in lagu kalsoonaado shisheeyaha, muhiimadda aqliga iyo geesinimada, iyo in rajada nolosha cusub marka laga adkaado dhibaatooyinka. Sheekadeenna halkaas ayay kusoo gabagabowday. Fadlan haddana subscribe ku saarna channelkeena, subscribe saar waana ku mahadsantahay daawashadaada.